kulanti wacan iyo Ramadaan Kariim meel kasto aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Hargeysa warka hadii alla idmo waxaad ila socodsiinaysaan ugu xamdaha October qodobada aad warka ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lacag ay ka soo jareen mushaharaadkooda waxa ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho bulshada danyarta ah ee Soomaaliyeed ayaa waxa la gaarsiiyay gargaar caawimo ah maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan sanad kasta bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxa meelo kala duwan lagu qabtaa tartan Quraan akhrisa hadaba waxaan idin haynaa warbixino la xiriira tartamo Quraan akhris ah oo la soo gabagabeeyay wararka aanu daawadayaal dibadda idinka haynana waxa kamid ah dabka kacay dalka Boortaqiiska ayaa waxa uu sababay geerida 60 qof iyadoo ay jiraan dhaawacyo kale daawadayaal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobadan warkaydii ku hayno wararkaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada markale kulanti wanaagsan idil ahaantiin ba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lacag ay ka soo jareen mushaharaadkooda waxa ay gaarsiiyeen qaar kamid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho faafinta warkani waxa Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada ka ah xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa lacag ay ka jareen mushaharaadkooda waxa ay ugu deeqeen qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Muqdisho waxa la arkayay ciidamada oo lacag shilin Soomaaliya ah siinaya qaar kamid ah qoysaska danyarta ah kuwa oo ku nool magaalada Muqdisho waxaana lacagahaasi ay ahaayeen kuwa ay ka soo jareen ciidamadaasi mushaharaadkooda qaar kamid ah dadka ka faa'iideystay lacagahaasi ay ugu deeqeen ciidamada ayaa ka mahad celiyay intaan joognay xamar ma arkin ciidan mishaarkiis inta iska soo jaray oo u keenay dadka walaalahooda maana arag waa arrin lagu cusub macnaha farxadii iyo baan tabcaananahay waxaan sameynay madaxdii ciidankii oo noo yimid lacagtii noo keenay meesha anoo ku dhibaataysan dhibaatooyinkii aad noo gargaaray macnaha ciidankaas waxaan u rajaynayaa guul cadowgoodana hoos inuu Ilaahay ka dhigo ciidankan kale noo dhimeeyay waligayga ma arag qaasadan ciidanka madaxtooyada gargaarka ay noo keenay iyo ciidankoodii iyo qalabkoodii iyo agabkoodii iyo gaaridooda ay noo yimideen oo ay noo keeneen halkaas maarta aad nagu soo booqteen wax kasta waxa noo qaad booqashada ay noo soo booqteen mid kamid ah askarta mushaharaadkooda lacagaha ka jaray una deeqay dadka danyarta ah ayaa sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha ku kalifay in xilligani mushaharaadka yar ay qaataan in ay gaarsiiyaan qoysaska danyarta ah ee magaalada Muqdisho ku nool gaar ahaan ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya maanta maxaan meeshan ka sheegayaa inaan dadka anaga shacabka oo tabaalaysan oo abaaruhu ay ku dhufteen adduunyadoodii in mushaarka aan qaadan hayo oo dhididkayga ah in aniga aan iska jaro oo u jaro dadkaas tabaalaysan kaamka ku dhow madaxtooyada insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii mushaarku noo sii socdana waaga hore mushaar saayida ma aan qaadan jirin laakiin hadda mushaarku waa noo bilowday wuuna noo sii socon doonaa insha Allah hadii uu noo sii socdana waxaan meeshan ka sheegayaa mushaarka aan qaadan hayo anigoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan u sharaxayo wixii qoonda oo qoondeeyo dadka rayidka Soomaaliyeed inaan u sharayno waa markii ugu horeysay ee ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya mushaharaadkooda lacag ay ka jareen ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho talaabadan ayaa noqonaysa mid horumar leh oo bulshada qaarkeed kalsooni xoog leh ku beeri karta Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey Universal TV magaalada in ka badan 2,000 oo qoys isla markaasina danyara oo ku kala nool magaalooyinka Burtule iyo Garowe ayaa hay'adda Islamic Relief waxay u qaybisay raashin gargaar ah faafinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Cumar Soomane
qoysaskan oo ay tiradoodu gaarayso 2359 ayaa hay-adda Islamic Relief waxay deeq raashin cunno gargaar ay ugu qaybisay degmada Burtinle iyo magaalada Garowe iyadoo qaybinta deeqdan lagu soo beegay xilli lagu guda jiro 10ka dambe bisha barakaysan ee Ramadaan waxaana qoysaska loo qaybiyay hayeen kuwa deeqdan u baahna maadaama ay la daalaan dhacayeen nolol maalmeedkooda waxyaabihii ay bisha barakaysan ee Ramadaan ay ku soo milhaayeen cabdimajiid abshir xiisi oo ah mas'uul ka tirsan hay-adda Islamic Relief ayaa isagoo ku guda jiray qaybinta deeqda raashinka waxa uu warbaahinta kula hadlay degmada Burtinle ee gobolka Nugaal isagoo ka warbixiyay muhiimadda ay ka leeyihiin qaybinta deeqdaasi maanta magaalada Burtinle waxay ka bixinaysaa Islamic Relief raashinkii sanad walba ay bixin jirtay oo loogu talagalay dadka danyarta ah agoomaha dadka curyaamiinta ah iyo dadka aan awoodda lahayn raashinkii ay ku afuri jireen oo sanad walba ay bixin jirtay Islamic Relief maanta waxaan bixinnay 529 qoys baan waxaan siinay raashinkii ugu horreeyey berina intoo kale baan rajaynaa inaan bixinno raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay 15 kiilo oo bur ah 10 kiilo bariisa 10 kiilo sokora 5 kiilo timira 1 kiilo oo boorasha iyo 1 kiilo oo dhiman 100 garaam oo caano boora ah 3 litir oo saliid ah intaas ayay maanta Islamic Relief ka bixisay magaalada Burtinle insha Allah magaalada Garowe intaas in ka badan baa laga bixin doonaa gudoomiyaha degmada Burtinle ee gobolka Nugaal Maxamuud Axmed Buurdibi ayaa geestiisa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in tirada qoysaska loo qaybiyay deeqda raashinka ay haayeen kuwa jilicsan isla markaana aad ugu baahnaa deeqdan ay keentay waxay ku soo beegantay xilli ay dadku ku jiraan bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaguna ay baahi weyn u qabaan inay helaan waxay ku afuraan runtii qoys walba waxa la siiyay afur ku filan hadday noqoto bariis bur sonkor timir boorash saliid iyo aytamyada dhammaan hadda aanu sheegnay runtii mana ahan markii koowaad ee Islamic Relief degmada Burtinle ay ka qaybiso raashin ama deeq ay soo gaarsiiso sanadkiina dhaafay 2016 bishii Ramadaan sidaan oo kale waxay u qaybisay raashin la mid ah kan maanta la qaybiyay hayeeshee dadka loo qaybiyay deeqda raashinka ah waxay ahaayeen kuwa isugu jira waayeelo danyar agoomo barakacayaan iyo dad kale oo aad u jilicsan waxaana deeqda raashinka la siiyey ay kaga bixi doonaan muddada kooban ee ka harsan bisha barakaysan ee Ramadaan Cumar Maxamed Somane Universal TV Garowe hay-ad dhinaca maaliyadda ah ayaa kulan ay ku qabteen dalka Sweden isla markaasina ay ka qayb galeen bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay kaga warbixiyeen qaabka ay u shaqayn doonto hay-adoodu faafahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir maamulka bangiga islaamiga ee wadamada Scandinavian-ka ee Amman Finance xaruntiisana tahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo kulan balaaran oo ay ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada iyo xubno ka kala socday shirkado caalami ah oo Soomaaliya iyo ajnabi intaba isugu jira waxa uu kulan ugu qabtay magaalada Stockholm Sheekh Bashiir Amaan oo ah aasaasaha iyo maamulka guud ee Amman Finance oo ugu horreyn kulanka ka hadlay waxa uu ka warbixiyay in macaamiishooda ay u soo kordhiyeen adeegyo dhameystiran oo dabooli doona howlahooda ganacsi iyo fududeynta arrimaha la xiriira lacag dhigashada iyo ka qaadashada iyagoo meel kastoo dunida ka joogaana ay Amman Finance u adeegsan karaan maamulka bangiga waxa uu sidoo kale sheegay in adeegyo caalami ah sida Mastercard iyo Visa Card ee lagu maareeyo lacagahana sidoo kale ay ku soo kordhiyeen howsha balaaran ee adeegyada bulshada ee dhinaca bangiyada ee la xiriira Amman Finance ay iminka gaarayaan 205 bangi oo heer caalami oo dunida ku kala yaala qofka u furaynaa akawna lacagaha ugu muhiimsan oo adduunka ka jira waxaan furi karnaa account dollar waxaan furaynaa account euro waxaan kaloo furi karnaa giniga Ingiriiska waxaan kaloo furaynaa maxay ahayto saddexda lacag oo Scandinavia oo ah Daniska Denmark iyo Norway iyo Sweden karoonkooda marka ujeedada ugu talagalnay waxa weeye adeegan cusub aan soo bandhigayno aan ugu talagalnay dadka runtii dhibaatooyin badan oo haystay dadka inaan uga dulqaadno
waxaa ka mid a sharikadihii soomaalida akownada laga xirtay akown baan u furi karnaa sharikadihii tagsiilayaasha iyo ganacsatada akownada laga xirtay akownaan u furaynaa qofkii shaksiga ahaa akownkii laga xirtay akown baan u furaynaa xawaaladihii laga xirtay akownada akown baan u furaynaa marka waxaan nahay internet banking rasmiya yaan nahay bangi baan oo kalaan u samaynay dadkii oo qofkii akown aan u furi karno akownkaasu adeegyadiisii oo dhan ku qabsan karo waxaan u samaynaynaa car uu haysto oo visa iyo master car oo adduunka meeshuu doono lacagtiisa uu kala baxayo waxana uu ku iibsan karo waxana uu ku gadan karo adeegaasna waan u samaynay ujeedada ugu weyn aan lahaynna waxay runtii inaa dhibka mujtamaca soomaalida haystay dadka soomaaliyeed soomaali keliya kumaana talgelin dadka adduunka jooga o dhan baa ka faa'iidaysan kara adeegan iyo khidmadan waxaan laysan u haysanaa aan kaga shaqayn karnaa wadamada midooda yurub oo idil EU wadamada la yiraahdo oo idil iyo wadamada la jaalka oo mataqaanaa aan weli xubin ka noqon midooda yurub sida Norway iyo Iceland iyo wadamadaas waxaa la isku yiraahdaa EES London wadamada EES ka oo dhan adeega uu ka iyadoo ugu dambeyntii ka soo qaybgalayaasha kulankana ay si weyn u soo dhaweeyeen hawsha cusub iyo adeegyada caalamiga ah ee Amaan Finance ay soo bandhigtay Cabdulqaadir Cilmi Ciise Honesty Universal TV magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan Quraan akhris oo loo qabtay caruur yar yar waxaana tartankaasi ka qayb galay culimada Soomaaliyeed iyo dad kale faafahinta warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdishakuur Faarax Igalle tartankani Quraan akhriska ayaa waxaa loo qabtay caruurta yaryar ee dhigata madrasada Imaamu Naafic oo ku taal xaafadda Islii waxaana caruurtan yaryar ay ku tartamayeen xifdinta Quraanka iyo hingaada waxaana tartankani soo qaban qaabiyay maamulka madrasada Imaamu Naafic iyadoona ay ka soo qayb galeen culimaa u diin aqoon-yahano iyo waalidiin furitaanka tartankan ayaa caruurta yaryar waxa ay ku soo bandhigeen axaadiis iyo nashiidooyin ka hadlaya qiimaha ay leeyihiin waalidiinta iyo macallimiinta maamulka madrasada Imaamu Naafic iyo qaar kamid ah culimaa u diinkii ka soo qayb galay ayaa ka hadlay qaabka loo tarbiyeeyo caruurta iyo mas'uuliyadda saaran waalidka waxaana abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay munaasabadani qaar kamid ah ardaydii kaalimaha galay ku maalinaya walaalaha xaflada wanaaga badan soo abaabulay soo habeeyay caruurta iyo ubadka sidaa wax u soo baray waa mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkiina ha weyneeyo waxaan kale ku mahadinayaa waalidiinta caruurta dhalay waa mahadsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadkiina ha idin xifdiyo wax aada iyo aada u qiimo badan bay horteedna ku aqriyeen waxyaalo aada u waaweyn oo ka tarjumaya sharaacada islaamka ayay caruurteenna horteedna ku aqriyeen wax aada iyo aada u wanaagsan weyn hadalkay waxaanu ku aadinayaa macallimiinta iyo waalidiinta maxaa yeelay waa labada lafdhabarka u ah ciyaalka waxbarashadooda macallimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii markaad xambaarteen oo aada kitaabka ilaahay xifdiseen oo aada barateen ayuu haddana ilaahay wuxuu idiin suurageliyay inaad noqotaan kuwa ilaahay kitaabkiisa dadka sii baro marka insha allah tacaala dardaaran waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii in la koryeelo lianna kitaabkan ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey waa wax fudud waxaana lagu bari karaa fariiqooyin aada u fudud ilmaha haddii waalidka uu kula shaqaynayo macallinkan uu dadaalayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu tashiilina lianna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man yurid allahu bihi khayra yufaqihu fi diini qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka doonaya wuxuu fahamsiinayaa diinka wax ka weyn ma laha qofka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii lafdiga uu barto macniga uu barto uu ku dhaqmo umuuraha dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fududaynaya waxoogaa tashiilaad badan oo jira darteed ilmaha waxaan rabnaa anagu inaan xalli jiraa ka farxino oo diintooda wax ka macaan aan jirin ay arkaan macallimiintooda waalidiintooda ay kalsooyin ay arkaan culimadii markasta loo keenayo qalbi maxaa ii jiray jacayl waxaa ii jiray xasabad oo mataano
kalgacayl oo isu xambaaran taageero la soo dhacan marka dantan kale waxa waaye ma aan ka farxino oo kale ilmihi haddana saas ay tahay dhammaantood lagu wadaxi karo oo tabartiga la wadooda saamaxay marka la isku xirnaanshaha lafteeda iyo xafladaha soo qayb qaadanaya laftiina maadaama ujeedka kalena ay tahay ilmahan inay diinta kusii dhiiradaan ay bartaan way diintooda si fiican bartaan ay tahay inaan naga qayb qaadataan insha allah waan rajaynaynaa. cabdishakuur faarax igalle, Universal TV, Nairobi. qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo iskood isu xilqaamay ayaa waxay olole nadaafadeed ka sameeyeen maqaayadda Pizza House oo dhawaan ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen weerar. Faafahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Sakariya Maxamuud. isxilqaam waa halkuliga ay ka dhigteen maanta dhalinyaradii ka qayb gashay ololaha nadaafadda ee dib loogu soo celinayay bilicdii ay lahayd xarunta Pizza House oo toddobaadkii hore gudihiisa ay weerar ku qaadeen koox ka tirsan Al-Shabaab. waana markii ugu horeysay ee lagu arkay Muqdisho meel Al-Shabaab ay weerareen. in sidaan oo kale dhalinyarada ku nool degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir in si wadajir ah ula qaybsadaan dib u soo celinta bilicdeeda ka hor weerarkii Al-Shabaab. xarunta Pizza House muna oo ka mid ah dhalinyarada ka qayb gashay maanta ayaa ii sharaxaysa waxay ahayd. Pizza House ma ahayn meel qamri lagu cabo, ma ahayn meel faqsi ka jiro, ma ahayn meel shiishad lagu cabo, meel umada lagu dhibaateeyo ma ahayn. waxay ahayd meel dhalinyarada Soomaaliyeed ay isugu timaado isla markaana ay isxilqaameen dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanku wax ku baratay ee wadanka aanan ka bixin inay dhalinyarada kala helaan meel ay ku sheekaystaan. Maxamed Antoob waxa uu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay hagaajinta Pizza House waana gudoomiyaha degmada Hodan oo ay ku taalay dhismaha ay weerareen Al-Shabaab. waxa uu sharaxayaa ujeedada maanta halkan uu imaaday. marka waxaan rabnaa walaalihii fikirkan quruxda badan lahaa meeshan noo sameeyay quruxda badan inaan la taagana garabkooda nahay nadaafadii maanta aan kala qayb qaadanayno waxaan rajeynayaa insha Allah inaan dhismahana kala qayb qaadano haduu Ilaahay yiraahdo Pizza House oo ka qurux badan Pizza House sidii la yaqaan inay dib u soo noqoto taa waxay cadeen u tahay dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed inay diideen in is dhiibaan taasna waa astaan u gaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Khadiija Ciise Faracade oo ka mid ah dhalinyaradii ka qayb gashay ayaa ii sheegtay in dhalinyarada si wadajir ah u garab istaageen dhalintii kale oo waqtigooda iyo lacagtooda geliyay xarunta dhismaha Pizza House. qadarta Ilaahay ayadana wax la baaji kara ma aha. annaga soo hadda waxa yiri diilada leh waxa magaalada Muqdisho ka bilowdo ah in dadku isu gurmadaan ee meesha duntay ay rabaan inay dhisaan ayagu dhisaan qashinka iyo burburka yaalana ayagu ku xaqayaan gacmahooda ku xaqayaan marka waxay noo noqotay dhirigelin weyn noo noqotay inta badanna waxa waaye qof kaliya wax ka halaabi jireen laakiin hadda bulshada wax ka halaabeen. ka hor weerarkii Al-Shabaab Pizza House waxay isku diyaarinaysay munaasabadda maalmaha ciida iyo holo loogu talagalay in lagu dhigto xafladaha laakiin taasi waxa saameyn ku yeeshay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen. Cabdiraxiin Maxamuud oo ka mid ah milkiilayaasha ayaa ii sheegay in mar kale rajadoodu ay tahay in dib ay u soo celiyaan bilicda iyo dhismaha ay lahayd. waxa aad ugu faraxsanahay horta in heerkan aan ka joogno dhalinyarada maan u maleynay waxaan ogaanay markii musiibada nagu dhacday kadib sida ay noola qaybsadeen xanuunka oo ay noogu soo gurmadeen taas waxay sii xoojinaysaa insha Allah in Pizza House markasta ay tahay entity ama baalkii ganacsi ay leeyihiin dhalinyarada insha Allah waxaan bilaabi doonaa dhismaha waxaan rajeynayaa insha Allah waqti kooban in khasaarihiina gaar insha Allah aan ka soo bogsano Pizza House ay noqoto insha Allah meel kamid ah meelaha ugu bilicda qurxoon magaalada. halkan waa qayb dambe ee xarunta Pizza House ee toddobaadkan gudihiisa weerar ay ku soo qaadeen koox ka tirsan Al-Shabaab. muuqaal ahaan halkan markaa fiirisa waqtigan way ka duwan tahay muuqaalkii hore laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa u istaagaya dib u soo celinta bilicda iyo inay garab istaagaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan milkiil ahaanta u leh. Zakariya Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. in ka badan 1,000 qoys oo barakacayaal ah isla markaasina ku nool magaalada Baydhabo ayaa waxaa loo qaybiyay deeq gargaar ah sida uu faafahinta warkan inoogu soo diray wariyahayaga Muxyidiin Xusni. ku dhawaad 1,000 qoys oo ka mid ah dadkii abaaraha ka soo barakacay ee Baydhabo ku dhibaataysan ayaa maanta Baydhabo raashin gargaar looga qaybiyay oo isugu jiray bur, bariis, sokor, timir iyo saliid.
gargaarkan raashinka oo bixinaysay Islamic Care fadhigeeduna yahay dalka Jarmalka ayaa waxaa goobta raashinka laga qaybinayay goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah culimada Baydhabo ganacsato iyo madax ka socotay kuwa gargaarka bixinayay Sheekh Ibrahim Muudey oo ganacsatada iyo culimada Baydhabo ka mid ah iyo Sheekh Ibrahim Ali Cabdi oo ka mid ah ganacsatada ayaa ka hadlay sida ay xilligan Ramadaanka ay muhiim u tahay in la gurmado bulshada abaaraha ka soo barakacay ee Baydhabo ku dhibaataysan الله تعالى waxaanu rajaynaynaa inaysan noqon gacantiin ugu horeysay runtii dadkan way dhibaataysiin si dhibaatadan looga saaro waxay u yaalaan anaga noo maartay ilaahay xiloo naga saaray anagoo ah gudigii maartay abaaraha gobolka Baay qaasatan lajnadii masaajidka jaamaca runtii arintan ilaa muddo 5 bilood ayaan soo wadnay marka runtii gacantan maanta ay soo gaarsiin walaalaha Islamic Care waa aad baan ugu faraxsanahay waa gacan muhiim ah oo runtii walaalahan masaakiinta oo baahan ay aad ugu farxeen insha Allah تعالى waxaan warkeen ku soo gabagabaynaynaa yeesan noqon gacantii koowaad mid labaad mid saddexaad idin ka hel wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa u mahadcelinaynaa Islamic Care deeqda qiimiga badan ay soo gaarsiiyeen dadka halka maanta wax ka qaadanaya dadkaanu waxay ka kooban yihiin barakacayaal kala duwan oo deegaano kala duwan ka soo barakacay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in allaale intii deeqda wax ku lahayd ama wax ka bixisay inuu maalinka qiyaamaha ilaahay ugu shafeeco danahooda adduunyada gaarka ahna ilaahay uu ku kaalmeeyo jeebkii ay ka soo bixiyeenna ilaahay jeeb baraka leh uu ka dhigo annaguna ka reer Baydhabo ahaan ka odayaal ahaan deeqda iyada waa soo dhawaynaynaa Xaaji Aadan Salaad oo ka socday Islamic Care ayaa dhankiisa sheegay in gargaarkan ay sii wadi doonaan isagoo faahfaahiyay cunada maanta ay bixiyeen waxaan inay cadaynaynaa alxamdulillah walaalahan Islamic Care maanta inay halkaan yimaadeen ay qaybiyeen 25 kiilo bariisa 25 kiilo bura 25 kiilo sonkor ah 3 caag oo 3 kiilo caag saliida iyo 1 kiilo timir ah saas la'aaligeed walaalayaal way soo gaartay musaacadadeeni aan kaalmadii soo dirtay walaalaha muslimiinta Germany iyo Ishaag Holland siba khaasatan masaajidka Alquba iyo Soomaalida Holland uu ka aruuriyay sheekheena qaaliga ila khayra si miisaanka xasanaadkana ugu diray walaalaha sadaqada la baxay Sheekh Maxamed Idriis way soo gaartay waad si aad u jeedaan walaalayaal sadaqadii dadkii masaakiinta u baahnaa ayay gaartay 800 oo qoys ayaan la siiyay intaas Muxuddin Xusni Universal TV Baydhabo qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxa ay qoysas dan yar ah oo ku nool magaalada Kismaayo gaarsiiyeen gargaar caawimo ah sida uu warkan inoogu soo diray wariyahayaga Mas'uud Cabdilaahi Aadan qoysas barakacayaal oo dhawaan soo gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta deeq raashin waxaa gaarsiiyay xildhibaano ka tirsan dawlad goboleedka Jubbaland deeqdan raashinka ayaa waxaa soo dhiibay qurba joog Soomaaliyeed oo ku nool dalka Jarmalka dadkan oo ah dad reer miyi ah ayaa xoolahoodii waxaa ka dhamaysay abaartii la soo dhaafay mahad horta Ilaahay iska leh maanta anagoo odayaal oo kalimad noogala wacay Kismaayo duleedkeeda baadiida oo maanta loogala qaybinay raashin inta noogala seenay siyo mahad ka sheeganin raashinkaas maanta inta qaadanayna 15 kiilo bariis 15 kiilo sokor 15 oo bur kiilo samir 3 saliid mahadaas Ilaahay yaa iska leh waxaan mahad ugu celinaynaa si diiran oo aad iyo aad u ballaaran ayagoo agoomo iskugu jiraan ayagoo masaakiin iskugu jiraan ayagoo waayeello iskugu jiraan ka imaanay miiga baadiye Kismaayo korkeeda maanta nagul qaybtaas nagula siiyay meeshaan alxamdulillah shukr kuwiina siina la maqaad ay noqdaan maanta waxaan halkaan ku qaybinaynaa raashin tayadiisu tahay 15 kiilo bariis ah 15 kiilo sokor ah 15 kiilo bur ah 3 saliid kiilo timir oo aan u qaybinayna maaragtay dadka soo barakacay maaragtay duleedka magaalada Kismaayo anagoo maanta ku sugan madrasada Ansaar waxaan halkan si wada jir ah mahad ugu celinaynaa dhammaan jaaliyadaha ee ku nool Jarman oo si buuxda u taabadgeliyay bixinta deeqda ee raashinka ay la gaarsiiyay dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed mii magaalo oo ku sugan xildhibaan Cismaan Xuseen Bastoor oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay ahayd mid loogu talagalay in lagaga farxiyo
dadka dhowaan soo gaaray magaalada Kismaayo wuxuuna sheegay in dowladda Jubbaland ay ku dadaali doonto sidii dib u dejin loogu samayn lahaa dadka barakacayaasha ah dadka awooleyda loogu talagalay ciidii inay ku ciidaan ay muxuu ah soonka loogu talagalay inay ku soomaan muxuu ah goobjoog waan ka ahnay waa la qaybinayaa waxaana loo qaybinayaa qoyskiiba 100 muxuu ah 10 oo muxuu ah bur ah 10 sokor ah 10 bariis ah caag muxuu ah saliid ah bur timir intaas hadda horteena loogu qaybinayaa anagoo aad u soo dhaweynaa anaga haddaan nahay maamulka Jubbaland ama xildhibaanadoodii aad baan u soo dhaweynaa dhowr jeer aan halkan wax ka qaybinay aniga xildhibaano kale sharaf weyn bay noo tahay Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa qoysaska danyarta ah ee xoolahoodii ku soo dhamaadeen abaaraha waxaa la soo daristay tamar darro dhanka waxbarashada caruurtooda ah gaar ahaanna dugsiyada quraanka kariimka ah faafahinta warkani waxay noo soo dirtay wariyahayaga Samsam Cabdikariin inta badan qoysaska danyarta ah waxaa saamaysa dhinaca waxbarashada caruurtoodana waxay wax ku bartaan meelo ka duwan kuwa dadka taajiriinta ah halkan waa dugsi ku yaala deegaanka Sangailo kaas oo ay dhigtaan caruur qoysaskooda ay danyar yihiin horaana ay xoolo dhaqato ahaan jireen waalidiinta ayaa xoolihii ka soo dhamaaday horaan waxaa la siin jiray macallimiinta markii ay 184 bogaan qaalin ama dibi ninba siduu u yaqaano 2 jir ah balse hadda abaaro ba'an oo soo noqnoqday taasi meesha way ka baxday xilliga cadceeda caruurta waxay fadhiistaan banaanka sida inii muuqata waxana ay ku jiraan haween aad u tiro badan oo xoolihii ay dhaqi jireen soo dhamaadeen dugsigaas ayagoo ku baranaya quraanka iyo diinta islaamka horjoogaha ama macalinka dugsigaasi waa qaadiga degmada Sangailo wuxuu isku xil saaray sidii uu u bari lahaa diinta islaamka dadkan xoolaha ka soo dhamaaday waa kan macalinka oo arintaasi ka hadlaya marka hore waxaan ku bilaabay magacayga saddexan Sheekh Yunus Ajere Macallin Bashiir meeshaan ka hadlayna waa Sangailo Division waxaana agta qaadiga Sangailo Division muslimiinta waan salaamayaa dhammaan waxaan u hambaliyaynaynaa ama aan leenahay Ramadaan mubaarak Ramadaan ilaahay soonka inaga aqbalo li'annahu waqti qaal ayaan ku jirnaa fursad fiican ayaan haysanaa walaalayaal waxaan ku barnaa kitaabka quraanka iyo tarbiyada sida diinta islaamka furuucdeeda sidii axaadiista fiqhiga oo salaada ka hadlayo ilmahan kelima waxaa soo xaadiraan dumar oo la siiyaa duruus 3 kitaab loo akhriyaa sidii kitaab leer majaalis Ramadaan ka hadlayo kitaab fiqhi oo salaada barayo dumarka أحكام تختص بالمؤمنات دمرك وتخصصنا وأنا خينا أو من صحيح ما هذا 4 ساعة إلى 6 ساعة جوان دمرك إيجانا المهم وحلا برا كتابك قرآنك على حفظ السياق مركو هو ولا فر برا سيد أركي سامبا لوحة قرآنك الله يقول لك سيدي سومالي ده رقم كذا هنجرتي إسلام كهنجري لوحدة سالو كفر برا لوحدة مركا كفر برتان دبادات وحلا قدك سيد أركي سين كتاب لي اللي بتلا لبا قيب وفربر أو معلمين تجوان أو تربيان وحيسوا فربرا المها aniga iyo macallimiinta kalena waxaan baraynaa ilmaha qaabka tajwiidka iyo qiraa'ooyinka sida loo akhriyo si kastay ahaato diinteena islaamka waa midda ugu horeysa oo loo baahan yahay in xoogga la saaro laguna bixiyo lacag aad u tiro badan balse taasi ma suura gasho muuqaalka inii muuqda waa caruur doonaysa in ay quraanka kariimka bartaan waxaa sii dhammaanaya dugsiyada lagu farbarto looxda halka magaalada wax lagu barto buug iyo kitaab oo kali ah dugsigan wuxuu ka mid yahay dugsiyada farakatiriska ah oo looxyada wax lagu barto Samsam Cabdikariin Universal TV Garissa mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa kulan casho ah isla markaasina dhiirigelina waxa uu sameeyay wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika faafahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi ganacsade Mahad Cumar Cabdi Mahad Libaax ayaa kulan afura u sameeyay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika
xilli lagu guda jiro dabayaaqada bisha barakaysan ee ramadaan. mahad cumar cabdi oo bilooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa wariyaasha uga warbixiyey horumarka ay ku tillaabsatay dowladda soomaaliya, isagoona rajo wanaagsan ka muujiyey in dowladda soomaaliya ay u diyaargarowday sidii ay usoo ceshan lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka intiisa kale. kulanku wuxuu ku saabsanaa anigoo muddo dheer waddankan ka maqnaa oo soomaaliya especially magaalada muqdisho jiray, in aan wariyaasha halkan jooga oo xaqiiqiyan indhaha soomaalida ee waddankan ah oo habeen iyo maalin dheef iyo dheef waxaan waddankan ku qabno soomaalida caalamka meel kasta joogaan gaarsiiyo, inaan kowdii uga mahad celiyo shaqada fiican ay qabtaan. labo, aan warbixinta rasmiga ee hadda waddanka soomaaliya ka jirto, isbeddelka socda, dowladda cusub, isbeddelka la sheegaya muxuu yahay, amniga cusub muxuu yahay, isbeddelku muxuu yahay, inaan mataqaanaa warbixintaas guud inta uu ilaahay iga karansiiyo inaan maaragtay dhallinyarada aan maaragtay waqtiga dheer wada shaqaynaynay inaan warbixintan siiyo. waxaan ogaaday macnaha wariyaasha South Africa waxay qabtaan, markii aan Soomaaliya tegay ayaan ogaaday waxay qabtaan. markii guri walba, magaalo kasta, tuulo walba, macnaha South Africa tuulo xaafad loo yaqaano liajli warka ay ku gudbiyeen daraaddeed. cabdikariin mursal faarax oo ku hadlayay magaca saxafiyiinta ayaa tilmaamay in kulankani uu yahay mid taariikhi ah, isagoona dhanka kale bogaadiyey saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika ee ku shaqeeya xaaladda adag. kulankana caaw wuxuu ku saabsanaa kulan afur oo ahaa waxaa afurkan wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town u sameeyey mahad cumar cabdi oo ah siyaasi Soomaaliyeed kana mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. runtii wariyaasha in muddo ismaysan arkin, caaw fursad weyn ay u ahayd in halkan lagu kulmo, la wada sheekaysto, waqti badan la wadaago, xog badan oo halkan ka jirtay gudaha dalka Koonfur Afrika iyo guud ahaanba Soomaaliya halkan lagu kala qaato. haddii wariyaasha aysan ahaan lahayn oo xogta markaas ay hayaan aysan gudbinin, way adkaan lahayd in wax laga qabto waxyaabo badan oo maanta wax laga qabtay. runtii kulankani uu noo soo bandhigay ninka aqoon-yahanka ah, warbixinta uu naga siiyey waddanka Soomaaliya waxay ahayd mid aad noo soo jiidatay. sidoo kalena wariyaasha South Africana ayna siiyeen ayagana warbixin gudaha ku saabsan. waxaan dhihi karnaa waa barnaamij aan u baahnayn in badan. xasan kaafi maxamed shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town. weli daawadayaal waxa aad daawanaysaan warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Hargeysa. wararkaanu dibadda idinka haynana waxaa ka mid ah dab ka kacay dalka Boortaqiiska ayaa waxa uu sababay geerida 60 qof iyadoona ay jiraan dhaawacyo kale. faafahinta warkani waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige. dabkan xoogiisu waxa uu kacay habeennimadii xalay guud ahaanba qaybo ka mid ah waddanka Boortaqiiska, gaar ahaan halka lagu magacaabo Betragao oo loo tirinayay inay ahayd meesha ugu badan ee dadku ay ku hoobteen. wararka ayaa waxa ay sheegayaan dad 60 ka badan in meydadkooda laga helay gawaaridooda dhexdooda inta badan, walow qaarkoodna laga helay meel aan ka fogeyn gawaaridooda ee waddo ka mid ah waddooyinka halka lagu magacaabo Betragao. ra-iisul wasaaraha waddanka Boortaqiiska Antonio Costa ayaa waxa uu ku tilmaamay masiibo qaran inay tahay arrintan, isagoo dhinaca kalena sheegay laga bilaabo Axadda 3 maalmood in loo baroor diiqayo dadka masiibadu ay ku habsatay ee dabku uu balaayeeyey. wararku waxay sheegayaan in ay caado ahayd inta badan waddankaasi Boortaqiiska in dabku uu kaco, laakiin dabkani uu yahay mid xoog badnaa iyo sida uu isugu batay mar qura, taasoo ahayd tu ka duwan waayo aragnimadii loo haystay xilliyada kulaylaha in dabku uu ka kaco waddankaasi Boortaqiiska. halka lagu magacaabo Betragao, gobolka ay ka tirsan tahay guddoomiyaheeda George Gomez ayaa waxa uu sheegay in la arkayay dadka qaar in gawaaridooda bannaankooda meydkooda laga helay, iyadoo weliba dadka dhintay 4 carruurihi ay ku jiraan. wararku waxay sheegayaan inaan weli la sheegin sababta keentay in dabku uu bilowdo, laakiin haddana loo tirinayo ra-iisul wasaare Antonio Costa sida uu ka dhawaajinayo dabaylo xoogle iyo kulayl isbiirsaday. waxaa ku howlan dabka ilaa iyo 1700 oo ka mid ah kuwa ama boqolyaha iyagu dabka la dagaalama, waxaana dabku uu ka kacay 60 aag ama 60 meelood oo ka tirsan dhulka isagoo dhirta ee dalka Boortaqiiska. waddanka Spain oo ah waddan ka mid ah wadamada Yurub, dalkaasna ay wadaag yihiin, ayaa waxa uu soo diray 2 dayuuradood oo ah kuwa biyaha kor ka soo daadiya si ay markaasi ula tacaalaan in dabkaasi la baqtiyo.
midowda yurub ayaa isaga lafahantiisuna waxa uu ka dhawaajiyey kuwa dabka la dagaalama inay soo dirayaan iyo weliba gargaar kale ee markaasi ay u baahan karaan dadka kale ee badbaaday. dhimashadan oo 60 ka badan iyo labada ayaa waxa weheliyay tiro kale oo 100 ku dhow oo iyaguna dadka dhaawacu uu ka soo gaaray iyo gubashada. ra-iisul wasaaraha dalka Boortaqiiska Antonio Costa waxa uu sheegay inta badan dadku inay neefqabatimeen markii qiiqa faraha badan ee ku baxay walow la arkay dadka kale qaarkood in ay dhinteen oo korkooda gubasho ay ku tiilay. xaaladdu marka ay tahay noocan oo kale ayay waxa ay sheegeen inay tahay mid loo baahan yahay in la iska wada kaashado oo aan loo kala harin si loo badbaadiyo dadka iyo markaasi wixii dhibaatadu ay soo gaartay. guud ahaanba waddankaasi Boortaqiiska heegan ayaa la geliyey qolyaha ka shaqeeya ee arrimaha degdega marka ay dhacaan iyo sidan oo kale si loola tacaalo oo dabka aanu u sii faafin walow haatanba 60 meelood oo kala duwan oo waddankaasiya dabka uu ka holcayo. daawadayaal qodobkaasi waxa uu dambeeyay warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanayay stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Hargeysa. warka waxaad ila socodsiinaysaan anigu Xamda Xaaji October aniga akhyaartii kale igala qayb qaadatay soo tabinta warkani waxaan idinkaga tagaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.